10 cashar oo aan ka bartay buugga Alkimistaha. Cabsidu waa caqabad weyn. Qalbigaaga u sheeg in cabsidu ay ka daran tahay caqabadaha ku soo wajaha iyo inuusan weligiis qalbi jabin. Marka uu raadiyo riyooyinkiisa, waayo aragnimadu ay hesho. Raadinta riyadaadu waxa ay ka dhigi doontaa mid qiimo leh. Dabagal kasta oo cusub waxa uu u baahan yahay gelitaanka dhul cusub oo aan la aqoonsan. Taasi waa cabsi, laakiin khatar kasta oo weyni waxa ay la timaadaa abaalmarin weyn. casharka labaad waxa dhabta had iyo jeer way waari doonaan. Runta qiiqiya muraayada laguma qarin karo, had iyo jeer way taagnaan doontaa. Marka aad raadinayso go'aanka saxda waxaad noqon doontaa mid adkaysta imtixaanada waqtiga. casharka saddexaad jawi kelitarisnimada. Dadku waxay ku guuldareystaan inay aqoonsadaan waxyaabaha wanaagsan ee noloshooda ku dhacaya maalin kasta oo ay quruxdoodu soo baxdo. mahadnaq waa dhaqanka lagu helo wanaagga maalin kasta. casharka afraad soo dhaweynta waqtiga. Anigu kuma nooli taagtayda ama mustaqbalkayga midna, waxaan xiiseeyaa oo keliya waqti xaadirkan. Haddii aad had iyo jeer xoogga saari karto waqtiga, waxaad noqon doontaa qof faraxsan. Ma jiro wax micno ii samaynayso ka fikirka waxyaabihii hore ama inaad lunto oo aad ka walwasho mustaqbalka, laakiin waqti xaadirka waxa aad ku jirtaa goobta suurtagalka ah oo sida aad u dhaqanto waqti xaadirka ayaa noloshaada hagi doontaa. casharka shanaad qaado go'aan. Marka uu qofku gaadho go'aan, waxa uu si dhaba u quusin doonaa qulqul xoog leh oo u qaadi doona meelo uusan weligiis ku riyo. casharka lixaad guulaha waaweyn iyo hal abuurnimadu waxay ka bilaabmaan maskax iska indhatiraysa waxaan macquul ahayn. casharka toddobaad si kasta ha ahaatee sirta noloshu waa inaad dhacdo 7 jeer iyo inaad kacdo 8 jeer, sababtoo ah marka 8aad waxay noqon kartaa horumarkaaga. casharka 8aad u fiirso safarkaaga. Way fudud tahay in dadka kale saameyn kugu yeeshaan, laakiin waxaad noqon doontaa qof murugaysan haddii noloshaada oo idil go'aamadeeda aad uga quusato dadka kale dartood. casharka 9aad waxba kuma jabnaa inaad tala qaadato oo aad dadka kale wax ka barato, laakiin iska hubi inay la socoto rabitaankaaga iyo hamigaaga. casharka 10aad oo ah casharka ugu dambeeya, waxaa jira hal wado oo wax lagu barto, waana ficilka. aad baad ugu mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka. ciwaanka follow soo dheh. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalka.